Ku dhawaad 110 arday oo sanadkan bogatay heerka dugsiga sare ee Somali Primary Secondary School ayaa xaflad ballaaran oo shahaado lagu guddoonsiinayay waxaa loogu qabtay Hotel Armaan ee magaalada Muqdisho. Ardaydan oo ah dufcadii sagaalaad ee ka qalin jebisay dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya ayaa waxaa xafladooda ka soo qayb galay maamulka sare ee Somali Primary Secondary School, macallimiin, arday, aqoon-yahano ay ugu horeeyaan bahda waxbarashada, culimooyin iyo waalidiin. Ugu horeyn waxaa madasha qalin jebinta hadallo soo dhaweyn ku daafuray Xasan Cabdulle Geelle oo ah maamulka ku-xigeenka guud ee xarumaha dugsiyada Somali Primary Secondary School. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan martida, macallimiinta iyo dhammaan ardayda ka soo qayb gashay xafladda tan qalin jebinta ah ay ku qalin jebinayaan dufcadii sagaalaad ee qalinka bedelanaysa qaybta secondary-ga una gudbaysa qaybta jaamacadaha. maanta iyo taariikhdu ay tahay 15 July waxaan leeyahay waa maalin ku weyn dhammaan inta uu nasab sheegata iskuulka hoose dhexe sare Soomaaliya. waxaan leeyahay soo dhawaada xafladatan maanta saacadan wixii ka bilowda waa noo furan tahay. waxaan rajaynayaa Ilaahay hadduu yiraahdo sanadka soo socdana si uma doono ardayda maanta qalin jebinaysa ayagoo ah arday jaamacada dhigta oo maanta heerka ay joogaan ka duwan. waxaan kula dardaarmayaa dhammaan ardayda maanta meesha joogta ninkii dadaali jiray inuu si lama laab dadaalkiisa ninkii dadaalkiisa uu liitayna oo dib u laabtay dadaalkiisa markii bini'aadamku waxyaabo ay ku hormareen oo bini'aadamku ku kala fiican yihiin wax kale maahan qurux maahan nasab ma wax kale waa wax aad garanayso cilmi waay. qofka cilmiga leh wax badan oo ka fiican yahay qofka kale. Sheekh Axmed Nuur Cabdi Jimcaale oo ka mid ah culimooyinka ugu caansan Soomaaliya kana mid ah professorada wax ka dhiga jaamacadaha dalka ayaa asna ardaydan dardaaran u jeediyay. iyo aad ugu mahadcelina maamulka iyo macallimiinta iyo howlwadeenada macadka Soomaaliya. waxaa wadatiin magacii dhan oo internationalka ah caalamiga wadatiin waana ka soo dhalaasheen. hambaliyo ardadana waxaan leeyahay maadaama markii ugu horeysay oo la hadlo ay tahay si gooniya waxaan Ilaahay funtaha ka reebo hal qof waxa waaye ukunta funta ku jirta badarkana jaaw adinka waxa bariis iyo baasta ka war bilowdeen. badarka waxa jira digir waxa jira markii la kariyo aan bislaahin oo iliga soo qabana jaawa la yiraahdo. nin waxa la yiri odayaha wuxuu guursada gabar yar ayamaana beejidku waa ku badnaayeen. markaas waxay tiri la yiri mar raba aniga waxa cunaysa soor iyo galley iyo waxaas digir. wuxuu yiri baasta iyo bariis waxay rabaan waxay ku baantaane been haddaan la sheegayn badar ma gaaraane budadeeda iyo kari mar raba beesa dhumiskaas weey. marka khayr Allah intaasaan ku soo koobi waxaan saxiifa min Allah waxa khaldana laga raali. Gudoomiyaha golaha sare ee xarumaha dugsiyada Soomaaliya Axmed Xaashi Faarax Shaaciye ayaa asna ardaydani qalin bedelatay u ballan qaaday in ay ku garabsiin doonaan doonista waxbarashadooda jaamacadeed. marka inta uu gudbay tahay marka shalay waalid oo soo lacag ka bixin jiray maanta iskuulkan uu ku hayaa laba waxbarasho oo labadaba ay free yihiin laakiin qofkee waa wiis qofka la arka ma jaamacadaha meesha imaadaan waxay siiyeen waxbarasho free kuwa qarsoon oo imaadaan waxbarasho free siiyeen ala iskale qabiil kuma bixino min jaclays kuma bixino maraatina waa kadii bal ayada xafiiska sitaara ku wada tagtiin waxay marka idinku daraya hatta mid dibadeed qof rabo ana diyaar kula ayada free waa qofkii rabaa ee ugu horeysa Suudaan, Masar, Sacuudiga, Ethiopia way imaantaa. laakiin qofkii in badan marka meesha caamuda marka dadka sharciyada daarbi jiray ee kursiga isla fadhi jiray inay laba qof kale yihiin marka waana gabagabo waa xilli salaad waa halana marka macad Soomaaliya waa macad hore u sii socdo. waana shacabduna wuxuu ka dhawaajiyay dugsiga midka la furay waa dareemaya sida waa hore u sii socdaa. socodkaas micnaheedu ma aha in iskuulka la badinayo
tayada waxbarashada in la badiyo annaga iskuulka badinayno waxaan kusoo gabagabeynayaa marka waalidkii wax kusoo baray horta kow alla subxaana wa tacaala u mahadceli waalidkii wax kusoo bara u mahadceli macallimiintii wax kusoo barta u mahadceli adigu waqtigaa horta u mahadceli waxaan kusoo gabagabeynayaa xafladdan waa dufcadiisa sagaalaad midda tobanaad ina lagala soo qeybgashiinaan jeclaanahay qolada hadda bixayso aad iyo aadaan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatuh gabagabadii xafladda ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey maamulaha guud ee xarumaha dugsiyada Somali Primary Secondary School Engineer Cabdinuur Cali Maxamed. dugsiga warkiisa hore xarun noo ahay laakiin hadda maanta waxaan maraynaa 3 xarun xarunta koowaad 2009 xarunta labaad waxaa ilaahay soo geliyay inaan furno 2016 3 sano dhamaysatay foofooda maanta qali jibinaya qaybta xarunta saddexaad ayadu waxay loo furantaa sanadusiyadka labaad sanadusiyadka saddexaad ayadana qorsho wuxuu yahay in hadduu ilaahay raadayna foofooro qali jibiyana ay yeelato maadaama xaruntii labaad 3 sano hadda aan ka joogno sanadka foofoorka qali jibiyey xarunta saddexaad insha Allah tacaala ayadana sanadka dambe foofoorada qali jibiyaasha qayb ka noqon doontaa waxaa loo jiray marka 4 iyo 5 iyo 6 ilaa ma dhamaato oo qaarkood sanadkan rajeeyay in aad ilaahay inay hirgelino annagoo u fiirinayna meelaha kasbaahiyo ka jiraan marka insha Allah tacaala macadku wuxuu furayay guud ahaan gaar ahaan bahda dugsiga Soomaaliya oo aan ahayn saddexdeena hadda oday oo aad aragtaan oo isha gudoomiye shaaciye iyo maamul wuxuu guud macna Xasan Cabdullaahi Cabdinuur wuxuu furayay inta ku abtirsata oo hadda inta qali jibida maanta markaan ku darno 500 iyo biyo intaas iyo wuxuu furayay kumannaanka waalidka iyo walaalka iyo asxaabta ee ku abtirsada dugsiga marka insha Allah tacaala waxaan halkan soo gaarisada ugu mahadcelinaa guddigii saaxiibadii dugsiga asaaskiisa qaybta ka ahay iyo sidoo kale maamulka qeybihiisa kala duwan iyo macallimiinta qiimaha badan leh oo halkan sabab u ah in aynu soo gaarno oo haddii iskaashi iyo isku xirnaan ay jir lahayn ardada maanta ay farxadan iyo qiimaha iyo rajayntaan isku dhimaneen ayaguna insha Allah tacaala waxaan leenahay ardadeeni halkan oo ducaa idin keenay haddana ducaan daba dhigaynaa laakiin haddii ilaahay September markii jaamacaduhu ay bilowdaan macallimiinta ugu horreeya lecturada ay soo galaan sheekadiina inay soo gaartaan in ka rabnaa oo ay ku soo gaarto dad macallinka la socda sida hadda aad ka wadaysatay ardayda badan waxyaabaha hadda ardayda jaamacadaha galaan ugu horreeya oo macallimiinta ay marti u noqdaan waa sida loo soo diyaariyo mas'uuliyadda iyo waxyaabaha la midka ah haddana waxaan rajaynayaa adigoo form 4 in barnaamijyada wax badan laga faa'iideeyay waxaan rabnaa marka ardayga koowaad macallinka ay jabta waa dhamaaday 10 daqiiqo waxa laga yaabaa 50 ilaa 60 sameeyada dhamaanaysa indhaha tagta lama rabo wixii lagu barakaasho adoo kaashanaya fartama taagata macallin jabta kala wadaagay dib وأيضا كده يرادا أرضية صوصة وما زلت حاجة موتي ماضو وديت موتي ماضو. إن شاء الله وقت واحد ماضي وقت يلا تأثير تواتي هنا دولا يرادو دريسنو وإحنا إن شاء الله تعالى كده وكتجينا ما يلمان لكن إن شاء الله بالدنيا صار مسير دونا هذا ما زلتي كسر فينا iyo asiyadina waalidina ayna agteena waa ka shaqeeyay insha Allah sanadka dambe iyo barwaaqo inta ka tiro badan iyo bacda xaluunta ka badiyay ugu dambeyn munaasabada oo ku soo ilaatay jawi farxadeed ayaa shahaado bixin kadib waxaan dareenkooda farxadeed wax ka weydiinay qaar kamid ah ardayda maanta ay ka gudubtay heerka koobaad ee waxbarashada dugsiga sare magacaygu Cabdikariin Cabdiraxmaan Diiriye oo kamid ah ardayda qalinjimiyaasha maanta iskuulka Somali Primary and Secondary School oo ugu dhigay xarunta Hall Arman xafladii qalinjiminta ee dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2018 waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta xafladda noo dhigo aan soo gaar heerkan maanta oo aan qalinjimiyaasha kamid ahay arnahan kamid ah arday kamid ah qalinjimiyaasha ahna gudoomiyaha midowga ardayda iskuulka qeybihiisa kala duwan Somali Primary and Secondary School marka waxaan u mahadcelinayaa dhammaan waalidiintii macallimiintii maamulka sidoo kale warbaahinta Ras Media oo qoraysan qaadaysa أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجيء فتح ياسين عبد الله وحمانتي صودة ماذي
waxbarasho ah waqti dheer aan soo waday ee maanta heerkeeda koowaad aan dhameeyay dugsiga sare ka bacdi waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta iyo maamulkii oo nala garab istaagsanaa inta wax baranayna waxna na soo barayay una taagnaa inay heerkan waxbarashada aysan gelin wax qalqalooca iyo aysan gelin waxa kale oo u mahadcelinayaa waalidiinta garabka nagu siiyay dhiirigelinta amarnaba aan ka daalin in waxbarashadeena aan hor u socono maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay guusha aan gaaray iyo waxbarashada qaybteeda iyo soo dhamaatay السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعبد الله أبو كرعلي نحن هذا كقلن جبيه سكول كصومالي بريمير سكندري سكول ولي ما أنا قلن جبين ما أنا أي قلن بدلشوا ما أنت وح فرحة دوني إن عن سكول كير كي كوا ده صار مايو عن هالكان نقوم هدعلنا يا معمول كمعلمين تي أرضي ده دمان كقلن جبين سكولات كل دوان قاسهنا وحنوسيم هدعلنا يا أرضي ده مع أصحاب تمان تيجي قلن جبين سكول كصومالي بريمير سكندري سكول بسم الله مقعي ومريم محمد حسن كان من أرضي ما تكلم بدلنا يصدق وصلح سريع سوماليا إن مدانا كنت أمسينا هير كان سوقرته وهرين هير كان إنه سوقر وحاجة ما دعلنا الله سبحانه وتعالى ويسور قليه مركح حكته وحاجة ما دعلنا والدين تيدا معلمين تيدا دمان أرضي ده وحصل صبرنا إنه أسكتوبا روحانتي لا أنتوا هير كان ما نسوقر لهن مركح حكته وحن سجار وما دعلنا إنه برا رجينا هير كإنتي sanadii farabadna isla soo qaadanay iyo wanaagii iyo waxbarashadii intiina soo dhaxmartay ardaydii walaalaheed ee maanta halkan ku wada qalin jabinay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa waalidiinteeda oo marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad la'aantood aan heerkan soo gaari karin بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحواي سعيد عبد القادر قعل oo kamid ah ardada sanadkan ka qalin bedelatay iskuulka hoose dhexe ee sare ee Soomaaliya runtii maanta dareenkayga runtii lama soo koobi karo farxad ayaa buuxisay sababtoo ay tahay wixii aan ku soo taamayay 10 sano iyo ka badan aan u soo joogay maanta alxamdulillah ugu dambeyn waxay soo gaartay maalintii aan heerka iskuulka ka gudbi lahaay oo aan u gudbi lahayn heerkan heer ka duwan heerka sare runtii waxa mahad mudan Allah subhanahu wa ta'ala oo marka koowaad islaam naga dhigay haddana fursad noo siiyay inaan wax baranay oo bulshada Soomaaliyeed aan indha u noqono Axmed Maxamed Faarax warbaahinta Raas Media magaalada Muqdisho.